وقفوا لباقي العيون أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت asxaabta channelka waxaan ka codsanaynaa inaad si wanaagsan muuqaal noo soo dhigno alla igna dhahdaan naguna caawisaan subscribe-ka gambalelka yarna furataan muuqaal noo soo dhigno saad aragtaan aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inaan bulshada la wadaagno xanuunkan loo yaqaano coronavirus siduu u gudbo ama u faafo ayaan jeclaysanay ayaguna uga faa'iideystaan. Xanuunkan wuxuu u gudbaa qof caafimaad qaba inuu la kulmo qof xanuunsanaya oo markaa uu taabto ama salaamo ama uu ku hindhiso xanuunkii markaa qofkaas si fudud ayuu ku qaadi karaa bulsho kale wuuna sii gaarsiin karaa oo bulshada waxay noqon kartaa bulsho xanuunkii wada qabta ama wada saameeyay. waxyaalaha kamid oo kale iyadana laga qaadi karo waxa kamid meelahan mujtamacu isugu yimaado ama ku kulmo maqaaxiyaha noqoto iyadana waa lagu kala qaadi karaa. in fara badan ay ku talinayaan dowladuhu inay dadku si iman oo guryahooda dadku ku sugnaadaan. waxyaalaha lagu kala qaadi iyadana waxa kamid ah qof xanuunsanaya buug uu taabtay ama uu akhristay ama meelo uu taabto kale ama gidaar ahaato ama meelo kale ahaatee qof kalena uu taabto markaa xanuunkan qabin isagina markaa si fudud ayuu ku qaadi karaa. markaa qofku inuu ka taxadaro oo gacmihiisa markasta maydho oo saabuun ku maydho oo intuuna sankiisa iyo afkiisa taaban inuu ka taxadaro ayaa loo baahan yahay iskana ilaaliyo waxyaalaha keenaya xanuunka inuu qofkaas si fudud qaado. awaamirta ay soo jeedinayaan dowladuna uu qaato oo qof ka dheeraado meelaha ay bulshada joogto oo gurigiisa ku sugnaado waa shay aad iyo aad u wiqaayo muhiim ah. waxaan arkaynaa dowlado fara badan oo caalam ka mid ah ay Soomaaliduna joogto ku nooshahay oo awaamirtii loo soo jeediyay qaadan waayay marka xanuunkii iyaga inuu markaa si fudud ugu dhacay ama ugu faafay oo Soomaali fara badan ay markaa isbitaalada u jiifto qaar kalena ay u dhinteen ayaan aragnaa. ilaahay inaga badbaadiyo marka awaamirta lagu dadaalo inta ayaan jeclaysanay inaan soo gudbino bulshada.